kusoo dhawaada warka maqal news guud ahaan ummadda islaamka ee dalkan Sweden ku nool ayaa 2 sano kadib si wada jir ah maanta salaada jamaacada ugu tukaday salaada ciida magaalooyin waaweyn oo dalkani ku yaala magaalooyinka Stockholm, Malmö, Örebro iyo magaalooyin kale ayaa ahaa kuwa fagaaraha magaalooyinkaasi ay buux dhaafiyeen dadka oo ay ku tukanayeen goobaha barxadaha sida lagu arkay sawir laga qaaday dadka ayaa wajiyadooda waxa ka muuqda farxad ayagoo sheegay in 2 sano kadib ay maanta dib isu arkeen ama ay ku tukadeen jamaacaad waaweyn xanuunka COVID-19 ayaa ahaa mid uu saameyntiisa ku lahaa in dadka aysan ku tukan jamaacadooyinka waaweyn ama isugu yimaadaan goobaha cibaadada iyo wixii la mid ah dhanka kale dawladda Sweden ayaa haatan u jeeday in talaabooyinka ka dhanka ah COVID-19 sidii hore loogu arkay oo haatan laga yaabo in uu dib u soo bilowdo waa sida dhacday 2020 haatan ayaa laga naxsan yahay in uu dib u soo laba kacay COVID-19 una saameyn weyn ku yeesho bulshada iyadoona nooca cusub laga yaabo in uu faafo dhawaan waxaana la sheegayaa in qorshe cusub ee hay'adda caafimaadka dadweynaha dalkani u dhigtay sidii loo waajihi lahaa sidoo kale hay'adda ayaa sheegtay in dhawaan laga yaabo in dad badan ay u soo dhacaan xanuunka COVID-19 ugu dambeyn dayac ka jira xarumaha umulisooyinka ayaa haatan la sheegay in xal loo helay cabasho badan ayaa ka timid goobaha lagu dhalo gaar ahaan cisbitaalada waxaana haatan Sahel Granska Hospital uu qorsheenayaa in uu malaayiin kron ku maalgashiyo sidii loo ballaarin lahaa adeega umulisooyinka loona badin lahaa qalabka dhawaan ay ahayd ka gadaal markii raay aruurin la sameeyay lagu ogaaday in xarumaha lagu dhalo ay ka jiraan dayac dhanka agabka iyo shaqaalaha waxaana la sheegay in tuulooyinka tusaale ahaan dadweynaha marka ay doonayaan qalliin loo geeyo magaalada weyn oo ay dhacdo halkaas in ay ku dhiig baxaan cisbitaalka weyn ee Sahel Granska ayaa doonaya in uu ku maalgeliyo malaayiin kron sidii loo ballaarin lahaa loona hagaajin lahaa goobaha lagu dhalo magacaygu waa Maxamed Ibrahim Yaale warkaasna waxaad ka dhageysanayseen maqalnews.com nabadgelyo